maanta waa potence. waa maxay potence? okay, caadi ahaan haddii soo koobo waxa waaye waa fududeen. caadi ahaan waa fududeen, waa wax la fududeyna. macnaha kasoo qaad haddii ay haysatid 4 lagu dhufto 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 4 intaa qor lahayd waa tirine kaliya. meeqa 4 haysataa? waa 1 3 4 5 6 4 qore 6 kor ka dhigay. afant 4 kor dhig 6 waay. macnaha waxay ka dhigan tahay 4 6 meel isku dhufana isla 4. okay, qaacidooyinkay kala duwan yihiin. haddaa haysatid tiro isku mid ah xisaabta caadi ahaan waxa waa fududeena. xisaabta markii wax caama laga hadlayo ama waxaa loo isticmaalaa xaruuftaas oo noqon karta ya ama ba ama x xa. macnaha marka waaye tiraday rabta ha noqoto, ba tiraday rabta ha noqoto, isla ada handane cayn waxay ka dhigan tahay maadaama labadan tiro hoose ay isku mid yihiin, kuwa kore waa isku dare. hadalkayga si fiican ha ku dhaco. maadaama tirada hoose ay isku mid tahay, kuwa kore waa isku dare. tiro isku mid ah waxaa ka wada isla tiradii. okay, hadday kala duwan yihiin maxaa dhacayo? haddaa haysatid inta haysatid xaggana ba haysatid laakiin tirada kore ee iskaga mid yihiin maxaa dhaca? waxaa dhacayo waxaa isticmaalaya qaws parenthesis. qaws isticmaale waxaa dhehe lagu dhufto ba, qowskaasoo xire waxaa kordhige isla tirada. warkayga si fiican kuu dhaco. haddee tirooyinka kala duwan yihiin, kuwa hoose kuwa korena ay isku mid yihiin, waxaa isticmaale parenthesis ama qoyska macnaha waa xire. inta furtida xire waxaana kordhiga tirada. marka haddii labada firaya haddaba tan waa 1 tan waa 2. qaacidadeena saddexaad, haddee tirada hoose isku mid tahay ka war iyo kuwa kore. haddii ay haysatid lagu dhuftay kuwa korena yihiin ba iyo ba. hadda fiiriya, labada tiro kore waa isku mid, labada tirada hoosena waa isku mid. maxaa sameeynaa? waxaa sameynaa qaacidada labaad sida ay sameeyeen. macnaha saas camal la sameynaa. tirada hoose isku dhufane lagu dhufta dhehe waxaana kordhigay ba. waa isfahanaa umaleynaa. okay, qaacidadeena afaraad, haddii aad tiro haysatid oo aad ku dhufatay tiro ba tiradan labada tiro koren ay kala duwan yihiin. macnaha laba tiro aana waxba iska gelin, intooda wax labada tiro hoose iskuma eko ama islama mid aha, kuwa korena islama mid ah. maxaa sameynaya? su-aasha jawaabteeda kooban waxaa waaye waxba ma sameyn kartid. isla sidii la ku qore maca waxaa sameyn kartid mala. isla sidii la ku qore macnaha la kordhiga cayn lagu dhuftay ba la kordhiga da. saas leeyahay. saasaa uga baxay.
waxba kama qaban kartid intooda way kala duwan yihiin waxba kama qaban kartid waxa yareerey kartida yareereene waxa fududey kartida fududee laakiin waash macnaha waxba kama qaban kartid qaacidadeena shanaad tolo maxay noqon doontaa qaacidadeena shanaad waxay noqon doontaa waxaa haysataa tiro iska dheh waxaa kordhigeynaa hadda tirooyinkan koro dhan waxaa soo qoro dhan tiro toganeed ama positive way togantaa macnaha af Soomaali ahaan markii positive la dhayo togan alla togan okay waa positive marka waxaa haysataa ba isla tiradii waxaa ku dhufane negative cayn maxaa sameynaya waayo laba siyaabood waxaa sameyn kartaa maadaama cashirkeena maxaa maadaama tirada hoose isku mid tahay tirada kore way isku darantaa ama way kala jarantaa okay tan wax cusub maaha waa ba laga jara cayn laakiin sheekada waxay waalane markay saan noqoto oo ba la kordhiga loogu dhufta daad dhaho ba oo negative cayn la kordhiga sheekada way waalane markay saan tahay labada tiro hoose isku mid ahayn maxaa sameyn kartaa waxaa sameyn kartaa saan waxaa dhahe ba la kordhiga loo qeybiyay ba cayn la kordhiga bes totally saasa sameyna waasfaana umaleyna saas sameyna midaan korane maadaama tirada hoose isku mid eed saanna waa sameyn kartaa ama saanna waa sameyn karta ba la kordhiga loo qeybiyay cayn la kordhiga waa sax labadan macnaha waa sax labadoodba waa sax labadoodba waa sax ay ka dhiganta okay marka qaacidooyinkan haddii soo qaadano tusaalaheena koowaad maxaan dhahnaa waxaa haysataa laba tiro saa hore u sheegay kasoo qaad 6 la kordhiga 3 lagu dhufta 6 la kordhiga 2 waxaa waaye 6 tiro le waaye tirooyinka tiro kamida waxaa waaye 6 3 lagu daray 2 waa qaacidadeena koowaad okay teena koowaad waaye waa taas qaacidadeena labaad maxaan dhihi karnaa waa taasa waxaan ku dhahay tiro kala duwan tirada hoose way kala duwan tahay tan korena waa isku mid tirada hoose way kala duwan tahay waxaa waaye 2 lagu dhuftay 3 tan korena waa isku mido waxaa waaye 4 iyo 4 maxay noqon kartaa waaye waxaan ku dhahay waxay noqon kartaa qoyska fure waxaan dhahay 3 lagu dhuftay 2 lagu dhuftay 3 waxaana kordhigay 4 3 ku dhufatid 2 hadda 3 ku dhufatid waa 6 4 taasna kor taala dhaq isku dhamaad qaacidadeena saddexaad waxaan dhahay labada tirada hoose waa isku mid kuwa korena waa isku mid labada tiro hoose kasoo qaad 3 lagu dhuftay 3
kuwa kore waa isku mid waa labo labo maxaa sameyn kartaa waa marka sida inta ku qeexan waxaa sameyn kartaa sida korkan aan sameeyo sida korkan aan sameyn kartaa ama waxaa sameyn kartaa waxaa dhigi kartaa 3 lagu dhuftay 3 oo loo kordhigay 2 waxaa dhigi kartaa 3 ku dhuf waa 9 loo kordhigay 2 ama waxaa sameyn kartaa qaacidadeena koowaado waxaa soo qabsan kartaa isla tiradii 3 2 ku daray 2 lagu daray 2 waxaa dhigi kartaa 3 la kordhigay 4 cajiib labadan jawaabna waa isku mid 9 la kordhigay 2 iyo 3 la kordhigay 4 waa isku jawaabta intana waa 81 intana waa 81 qaacidadeena afraad maxaa kaloo waxaan dhahay labada tiro bal aan codka ku daro wax yar waxaan dhahay labada tiro hoose way kala duwan yihiin kuwa korena way kala duwan yihiin maxaa sameyn karnaa haddii aad haysatid tirooyin noocaana waxaa haysataa 2 lagu dhufto 3 4 lagu dhufto 5 oo macnaha kuwa korena waa kaasa ayagoo dhan way kala duwan yihiin maxaa sameynay waa mixnad waxba ma sameyn kartid sawir u sheeg wax aad sameyn kartid mal isla sidii lagu qoray 2 la kordhigay 4 lagu dhuftay 3 la kordhigay 5 jawaabtu waa taasaab waxba madaxa iska wareerin wax kale aad sameyn kartid mal sidii hadda ay u qorantaa macna haddii okay cashirada marmara lagu qurxina lagu carcarfina okay markaas way ka duunaa kartaa laakiin hadda wax aad sameyn kartid mal qaacidadeena shanaad maxaan dhahay kasoo qaad labada tiro hoose waa isku mid 3 lagu dhuftay 3 kuwa korena waa isku mid waxaan dhahay kasoo qaad kuwa korena way kala duwan yihiin aan dhahay kuwa korena way kala duwan yihiin waxaa haysataa kasoo qaad 5 laga jaray 3 saa ugu shaqey kartaa qaacidadeena koowaad waxay sheegay marka tirada hoose isku mid tahay tirada kore waxay rabtaa noqoto muhiim maaha 3daas ka soo qaadanay ama waa kala jaray ama waa isku daray 5 waxaa ka jaray 3 aad u fudud waxa waaye 3 la kordhigay 2 waaba taasa jawaabta jawaabtan si kale ma ku heli karnaa si kale ma ku heli karnaa waa inaan isticmaalnaa qaacidadeena siibatan shanaad teeda hoose haddii ay labadan tiro 3 iyo 3dan ay kala duunaa lahaayeen madax faluuq abadankiina igu dhicla laakiin isla jawaabtana raba inaan helo anoo qaacidada kale isticmaala waxaan dhahay 3 la kordhigay 5 lagu dhuftay 3 la kordhigay negative 3 waxay la mid tahay 3 la kordhigay 5 waxaa u qaybinaa 3 la kordhigay 3 anigoo isticmaalayo qaacidadan ma fahant marka maadaama ay negative ahayd ama tiro 10 markay negative ahayd markii hoos keentay tirada tiro positive ay noqonay ma fahant marka 3 oo min 3 kan oo saasa inta laba kugu soo heereyso waxaa helay 3 la kordhigay 2 oo laga yaabo dad badan inay fahmin aan fududeeyo
waxaan dhahaa saddex la kordhiga shan waa saddex lagu dhuftay saddex lagu dhuftay saddex lagu dhuftay saddex lagu dhuftay saddex shan tirso 1 2 3 4 5 waxaa u qaybinaya saddex lagu dhuftay saddex lagu dhuftay saddex 1 1 2 2 saddex saddex labadaana soo hirtay 1 2 saddex laba la kordhiga okay caadi ahaan maadaama labadan tiro hoose isku mid yihiin ma u baahnin inaan isticmaalo laakiin waxaa sandulli kugu noqonayso haddii labadan tiro saan noqon lahayn saddex shan la kordhiga lagu dhufta labo negative saddex lagama waalayo tiradaas lee lagu bedelo bis maxaa sameynaya saanaa sameynaya qaacidada la isticmaalo waxba madaxa iska wareerin saddex la kordhiga shan loo qeybiyey labo la kordhiga saddex wabilaahi towfiiq waa fahantaa umaleyna marka potensiga lagu sheegaayo waa adiga shan qaacido maaha laakiin aniga hadda kala dhigdhigay waa kala furfuray laakiin haddii laisku dardaro waxay iskugu soo arooraan 1 ilaa 2 camal laakiin wixii anaa kala dhigdhigo oo fududeeyay ma fahanta marka videogan tartiib ugu soo cesho tartiib ha kaaga dhacdhacaan tusaale walba oo tusaalahan koowaad oo qaacidooyinkan aan ku sharaxayo ka faa'iideyso ku celceli wixii aad su-aal qabtidna commentiga waa kusoo qori kartaa markaas insha allah waa kaaga jawaabi doonaa wixii aad su-aal qabtid marka dadaala haddaa videogan subscribe dhahdid waxaa waayay jazakallah kheer because videogan waxaa ugu talagalay ama videoyaasheeda kale caadi ahaan inaan ummadda soomaaliyeed ugu faa'iideeyo caadi ahaanti marka ka faa'iideyso dadka kale aanu ogeyn laga yaabo dad inay u baahan yihiin videoyaashan u baahan yihiin macnaha marka haddaa awoodid subscribe dheh like saar share waana ku mahadsantaha daawashadaada